kulan wacan daawada meel walba caalamka ka joogta ku soo dhawow waa mar kale iyo barnaamijkeena wararka isha sirdoonka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtii saddexaad ee habka go'aan qaadashada madaxweyne Kennedy iyo sida uu kaga faa'iideystay qaladaadkii ka dhacay ugu horreyn waxa qoraalkan qoray oo uga mahad celinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha ambassador Cawaale Kulane Bangaraafi Salasiinja waxa uu ahaa qoraas sare waxaana buugiisa ku qoray in uu isagu xitaa walaac weyn ka qabay qorshaha CIA-da laakiin uusan ka xusin kulamada isaga oo ka cabsaday in uu shirka ka aragti duwanaado madaxda kale ee ka sareysa marka waxa muuqata in Paulus iyo Bangaraafi Salasiinja labaduba ay qorshaha ka qabeen walaac aad u weyn labadubana aysan kor u hadlin inta lagu guda jiray qorshaha CIA-da ee lagu maleegayay afgambiga dawladda Kuuba 4 bishii Abriil 1961 markii uu madaxweyne Kennedy waayay la taliyo ama wasiir ama taliye ciidan oo ka hor yimaada qorshaha ay soo gudbiyeen CIA-da madaxweyne Kennedy waxa uu ansixiyay in qorshaha CIA-da la fuliyo Kennedy oo markaa mudan in la xuso in uu xilka madaxweynaha hayo muddo 2 bilood iyo maalmo kooban ah Bangaraafi Salasiinja waxa uu sheegay hadii uu jiri lahaa hal la taliye oo ka soo horjeesta qorshaha shirka una sheega madaxweyne Kennedy Salasiinja waxa uu yiri waan hubaa in uu madaxweyne Kennedy uusan ansixin lahayn qorshahani go'aanka marka la fuliyay ee Bay of Biggest Invention duulaankii Mareykanku ku taageeray jabhadda mucaaradka Kuuba ee la doonayay inay afgambiso ra'iisul wasaare Fidel Castro sidee bay wax u dhaceen bishii Abriil 17 ilaa 20 bishii Abriil 1961 waxa la qaaday duulaankii uu fasaxay madaxweyne Kennedy ka oo ahaa Bay of Biggest Invention duulaankii Mareykanku ku taageeray jabhadda mucaaradka Kuuba 1400 oo ciidanka mucaaradka ah ayaa ka degay xeebaha galbeedka Kuuba ee xeebta loo yaqaan Bay of Biggest Invention ee gobolka Las Villas ee dalka Kuuba iyadoo aan mucaaradka wax taageero ah laga siinin xagga ciidanka cirka isla markaana ay mucaaradkii ku guuleysan waayeen in ay shacabka Kuuba ay taageero ka helaan ayaa waxay keentay in duulaankii uu fashilmay 19 bishii Abriil 1961 dhammaan mucaaradkii duulaanka soo qaaday waxa ka adkaaday ciidamadii ra'iisul wasaare Fidel Castro 22 bishii Abriil 1961 shir jaraad ayaa uu qabtay madaxweyne Kennedy waxa uu aqbalay mas'uuliyadda buuxdana qaaday in fashilkii duulaankii dhicisoobay ee Bay of Biggest Invention uu isaga lahaa mas'uuliyadeeda waxa uu yiri aniga ayaa ka mas'uul ah wixii dhacay 24 bishii December 1962 dawladda Kuuba waxa ay sii daysay 173 maxbuus oo ah xubnihii jabhadda mucaaradka ee soo qaaday duulaankii Bay of Biggest Invention ee Kuuba ayaa dib ugu soo laabtay Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa ogolaatay bixinta madax furasho dhan 55.5 milyan oo raashin iyo agab caafimaad ah deeqda agabka caafimaad iyo raashinka waxa bixiyay dhammaan shirkado Mareykan ah oo ka jawaabaya codsiyo uga yimid shacabka Mareykanka si ay u madax furtaan maxaabiista mucaaradka Kuuba natiijada go'aanka madaxweyne Kennedy ee fashilmay ee ahaa Bay of Biggest Invention duulaankii Mareykanku ku taageeray jabhadda mucaaradka maxay curisay natiijada waxay curisay in ra'iisul wasaare Fidel Castro uu awoodiisa sii haysto isla markaana ay korodhay taageerada uu shacabka reer Kuuba ka haystay waxa la oran karaa ra'iisul wasaare Fidel Castro afgambigii fashilmay waxa uu ka helay sumcad iyo tixgelin fara badan gudaha iyo dibadda dalkiisaba duulaankii fashilmay ee Bay of Biggest Invention ee Mareykanku ku taageeray mucaaradka Kuuba waxa uu aad u dhaawacay sumcaddii Mareykanka ee dunida ku lahayd gaar ahaan waxa uu duulaankii fashilmay waxa uu dhaawacay xiriirkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Ruushka oo markaa ahaa midowgii Sovieti oo kolka lagu jiray xiisadii dagaalkii qabooba khubarada qaar kamida waxa ay yiraahdeen duulaanka fashilmay waxa uu curiyay in sanadkii xigay ee 1962 ay Ruushka oo markaa ahayd midowgii Sovieti ay gacan ka geystaan in gantaalaha nuclear-ka ay geyso Kuuba arinta oo curisay gantaalaha dawladda Russia ay dhigtay dalka Kuuba October 1962 dhacdadan iyo habkii madaxweyne Kennedy iyo kooxdiisa ay go'aanka uga qaateen ayaan ku falanqayn doonaa qaybta afraad ee sheekadan go'aan qaadashada oo la oran karo madaxweyne Kennedy iyo kooxdiisu ay ku guuleysteen maxaa ka qaldana habkii ay go'aanka duulaanka ay u qaateen madaxweyne Kennedy iyo kooxdiisa
Irving Janis waxa uu ahaa aqoonyahan wax ka dhigi jiray jaamacadda Yale oo loo yaqaan Yale University ee dalka Mareykanka. Master Irving waxa uu ahaa social psychologist aqoonyahan ku xeel dheer cilmi nafsiga bulshada, waxa uu jaamacadda ka ahaa cilmi baare iyo macallin jaamacadeed. Master Irving waxa uu sameeyay daraasad taxane ah oo aad u xiiso badan intii u dhaxaysay 1950 ilaa 1970. dhammaan daraasadahaasi wixii ka soo baxay waxa uu ku soo koobay buug uu qoray oo la daabacay 1972. buugga waxa uu ugu magac daray Victims of Group Think oo loogu magac daray dhibanayaashii groupka. Group Think waa eray bixin uu Janis qudhiisu sameeyay. Irving Janis waxa uu daraasada ka sameeyay foreign policy decision go'aan qaadashada siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ka mid tahay go'aanka madaxweyne Kennedy ee fashilmay ee ahaa Bay of Pigs invasion, duulaankii Mareykanku ku taageeray jabhadda mucaaradka Cuba. sidoo kale waxa uu daraasad ka sameeyay sababta ay dawladda Mareykanku u garan waayeen in ay ku soo socoto weeraradii ciidamada Jabaanuuska ay ku soo qaadeen saldhiggii ciidamada badda Mareykanka. waxa kale oo kamid ahaa go'aanada siyaasadda arrimaha dibadda uu daraasada ka sameeyay Master Irving Janis. gantaalaha dawladda Ruushka ay dhigtay dalka Cuba October 1962. dhacdadan oo uu ku tilmaamay mid habka go'aan qaadashada madaxweyne Kennedy ay ahayd mid uu guul u soo jiiday. qaybta afraad ee qorshaha madaxweyne Kennedy ayaan ku falanqayn doonaa si aan wax u taxliilino go'aanka waxa ka qaldan. marka hore waa in aan macnaynaa waa maxay group think. haddii la soo koobo, group think waa dhaqan caqabad ku ah in ay xubno isku kooxa ay soo bandhigaan aragtiyo kala duwan iyaga oo u cabsanaya xubinnimada kooxda. group think waxa kale oo ay caqabad ku tahay in koox isku dan ah ay qorshihii loo keeno ay si hufan u gorfeeyaan si aynan fulinta qorshaha ugu fashilmin. haddaba si kooban ayaan uga hadlaynaa gaar ahaan Irving Janis khadadka aas-aasiga ah ee group think lagu macnayn karo ee ka muuqatay go'aan qaadashada madaxweyne Kennedy iyo kooxdiisa. ka gaabinta tixgelinta qorshooyin kale iyo dhiirigelinta in la badiyo qorshooyinka miiska la keenayo. laakiin nasiib darro, waaxda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da hal qorshe ayay keentay, qorshe kale oo lala barbar dhigi karo lama keenin. taa waxay xadiday fursadda lagu heli karo in go'aan laga gaaro qorshaha ugu fiican si aan loogu qasbanaanin hal qorshe oo kaliya. madaxii jabhadda ee fulinaysay qorshaha oo aan laga casuumin in ay qayb ka noqdaan geedi socodka gorfaynta iyo ka doodidda go'aanka habka qorshaha loo danaynayo in loo fuliyo. ku guuldareysiga in la gorfeeyo tusaalooyinka ay soo gudbiyeen kuwa u doodaya qorshaha sida tii ahayd in jabhadda haddii laga adkaado ay ku milmi karaan ama ku dhammaan karaan buuraha Cuba. arrinta in la imtixaano ayay ahayd sababta oo ah buuraha ay CIA-du sheegayeen waxa ay xeebta Bay of Pigs oo ah halka ay mucaaradka ka soo daadanayaan ay u jireen 80 mayl. qodobka noocaas ayaa mudnaa in shirka lagu falanqeeyo. waa tahay daawadeel intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii saddexaad ee habka go'aan qaadashada madaxweyne Kennedy iyo sida uga faa'iideystay fashilkii ku yimid Bay of Pigs invasion. qoraalkan waxaan uga mahad celinayaa oo qoray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha Ambassador Cawaale Kulane. fadlan la soco qaybaha dambe oo joogto noqon doona. mahadsanid.